nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino dulmidiido dulmi doonaan aragne dulmidiido dulmi doonees ku noqon war saas maahan xalka diido xilka doonaan aragnaye xilka doonow xalka diid ha isku noqon war sidaa ma ahane madax doono madax diidaan aragne madax doono madax diid ha isku noqon war haysta sidaasi maahana waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doon ha isku noqon aryaadhaha saas maahina dhegeys dadka doonow dadkii laayaan aragne dadka doonow dadkii laysa isku noqon war saas maayinku ku dheelen sharci doonow sharci diidaan aragneye sharci doonow sharci diid ha isku noqon war saas maahin haysto waxay ahayd qarax diidow qarax daayaan aragne qarax diidow qarax days ha isku noqon war maanta waxa la wixii filim Soomaaliya ka jiri ayaad la xasaarteen ilaahay ay ka aqbalo warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran bowdka kuma jiro aadan saaqna wuxuu dhigi jiray galmudug waxa lagu yaqaanaa dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanadii galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yiraahdeen waxaan ka jawaabnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya oo dhul dheer baa uma imaanay dhul dheer war maxaafa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto irmaahana shaqo joojina jirto kuma dhihin war nimayo xildhibaanada galmudug oo isxilqaan ka qayb qaatay macadaaday ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doonaa ka yimaadeen eedin isagsaari ba guraasan wir lamadin la hesheehe wir aryaadaha waxaa la yiri oo mihii la raabo meel kaloon la raabina ku reeda tal mihii la raabo meel kaloon la raabina ku reeda tal haye war waxaa la yiri nin la rabaa horeen badana amba reeda waa ka rogee war adeer muuse laxanka farxi fiski ma ku saartay war nimayo madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga fadhiya baa la yiri wuxuuna la shiryaa baa la yiri taliyaasha ciidamada mardowna waxaa loo malaynayaa duulaan culus inuu dhaco yaa ma bilowda mugi khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandhigga aadi jiriye war 8 February soo dhow war nimayo aanu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan iri 4 sano xilkii loo ballamay inuu dhamaanayo oo mucaarad lagu soo salliday ku tirtirinaya markay kala bargaartuu qofkiisii naxnaxayay kaambeynka xiga waa inuu rag u diyaarshaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay warnimada Axmed Madoobe waa tuu yiri dawladda xiriirkan u jarna aga war magacyada madaxweynaha dhanba waad ka tagtay al-Sayyid al-Sheikh al-Islam warnaga daa warkaan naga dhaxgelina waxaan maqli jiray ilka abees hoos ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda Jubbaland Cabdirashiid Jire Qalinle oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhamaanayn baa la arkay war xildhibaanadii xafiis alqaamayaba waa la arkay war waara xildhibaanadiisu musuqmaasuq ay ku eedeeyeen musuqmaasuq naftirkiisa musuqmaasuq ku eedayha aniguna war lafda gareen ba halka oo masuur u yimid wariya walba ko galdan lan ilkii goori hoos ma ki jiidaw boowe Puntland madaxweyne Dani wasiiradii xulidoodii ku mashquulsan yahay dad muhiim ah ayuu raadinayaa war Cabdullagaas ma ku jira waxaan idin anigu shacab ruux dambiile iska daba lugeeye qabiil ugu dagaala haddii uu daraad jiray maanta dawladnimo iyo qaran daaficiisaan u diyaar garowno danteennii ogaanay ka daadagaysaa nin walba maanta uu dantiisa helo qaran baan daafacayaa ayuu ku marmarsiyoodaa dadka kalena qaran dubis buu ku eedayaa warkaa looma dhamma horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil Soomaali oo dadka tahriibi jiray waxaana lagu xukumay xabsi daa'im war odagaan waagu yaraa uu qadcaba kowdhaha warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in la soo xiray astaayla sababtoo ah meesha dhabo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyo ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhaco sidaas wiilku ugu galay warnimaya war ana geeganka farahnay hadheegi
ما إلا أري موت لما لقود لي ولا أجي وذي دم ولا أروريوه إذا هلا ما جاب يلا أري ورما إن سبب مديان أرينا يلا تتكلم كتام أيوه اللي أري أنا ريد ما اللي أبسنا توقر رفلي توقع كويه هاي وأنا كويه هاي دادنا مدينه ما إلا هاي مسكين مسكين فول الله ولا مدلود له مسكين أرتبط الساقو مو كاستحاد ولا حن لقي أترى دقاه هلا سيبه warnimo iyo wixii laba lugood la hadii la xirayo aniguna laba lugood aan leeyahay ama la igu dara war inoo toor gararafka wadhaha erwu war xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa uu yiraahday dambiyada dhacaya waxa lagu geystay waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dawladda war xeer ilaaliyaha maqadu cabimaana kasta qaraxyada dhacay hubka dadka lagu dilay ma ciidamada dawladda askale warnimo aanu mar horaan iri hubka ciidamada dawladdu haystaan shacabka lagu difaaco haddaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay oo u dambeysay oo iyo xanuunsan oo sideed caruur haysto istaan laga soo qaado mootobajaar saaran isgoyska walwadaaga askar dawladdu ku dishay war maanta ay ahayd markii wadajir ay bajaajla ku dilayeen ciidamada dawladda maadin hore eedan kurumaytan widay ma yara jirtaan ka saase aniga ilmahayga geel ku marroogsan gariyeen dhabuur baa eber ka dhigtay aryaadaha gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri dadka jidadka dhisahaya iyo burcad badeedu waa isku mid waraana jisla dhisaa waday dambi tahay gudoomiyaha laftiisu ma qawad u dhisay warnimada waxa la yiri lug adoo laga rudahayo bahalku soo ruugay oo taaka rogi waayo ruuxu ka dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiyo inaad ku sii raagto roonaanna ku muujiyo roraya iman aree waxaas ma qaane waxa la yiri ma jaabeesa meel kaalay ka muulax leeyihiin wareer abeesa maahan afka u dhace masacagalay baa la yiraahdaa gorbuwaana shabaab cirka looga soo dhaca la yiri waxaana kamid ah Amir Yaman ah wareer Yaman ayada dagaal ka socdaa haduu dagaal rabo ayada muu ka dirir muxuu naga soo doonay dab ku dhace war Amirka bidaar buu leeyahay Yaman qof bidaar leh lagama ogola inuu ka dagaalamo aryaadaha anagu waa yaabanahay sujaacan arkayo in yatima ka soo baxan shalaysaaya xay tahay war Axmed Saciid oo foodaysta miyaad arkin wareeraha dadka bidaarta leh waa tii naafada lagu daray marka nimankaas waxa dastuuriya bay iska lumiyeen yaa tibay ka doorteen xay iska dhunsheen hadda sujaacan koofida ma ku seexanaya abadan madajay gaawaya siifide wariyaha xildhibaanada madaxa dhalaalay meesha may tagaan wareeraha markii geel loo heestaa goroyo heestaane lagu kala wada nimayow bixi mayna niyow ilaahay haydan arkeen